xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray tababar garsoorayaasha cusub ee tenniska ku soo biiraya waxaana uu tababarkan uu yahay mid socon doono muddo hal bil ah waxaana daafurka tababarka goobjoog ahaa xubnuhu hogaaminayo gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya ugu horreyn waxaa goobta hadal kooban ka jeediyay xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer wuxuu faahfaahin dheer ka bixiyay ujeedka ugu weyn ee tababarka loo qabtay asigoo shaaca ka qaaday in garsoorayaasha ka qayb qaadanaya tababarka laga soo xulay qayb ka mid ah dugsiyada gobolkan Banaadir gudoomiyaal waxaa ku soo dhawaatiin barnaamijkan aan ugu talagalnay inaan barno xeerkii tenniska ee ka faa'iideystaan ardayda dugsiyada oo yar yar run ahaantii xeerka tenniska markii laga hadlo wuxuu ka kooban yahay 31 qodob oo iska fudud waxaan ugu horeeyo mar walbo hadii xeer laga hadlaayo kubad walba ha noqoto waa meeshii lagu ciyaar lahaa goobtii lagu dheeli lahaa hadii aan la helin goobtii lagu ciyaar lahaa wax walba oo la ciyaarayo ma suurta galayso iyo agabkii markaas lagu ciyaar lahaa dadkii waa la helaa laakiin hadii aan goob la helin ama agabkii lagu dheeli lahaa la helin ma suurta galayso in maaragtay ciyaartaas ay socoto marka insha Allah ardayda waa isku dambeyn doona waxaan ugu talagalnaa maanta inaan barnaamijkan furano kooraskan insha Allah waxaa diyaari doono laba macallin hadii Ilaahay idmo oo maaragtay jadwalkoodan insha Allah idin soo gudbin doono dhinaca kale gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska ayaa hadal kooban jeediyay sheegay in ujeedka ugu weyn ee loo qabtay tababarkan uu yahay sidii xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska uu heli lahaa garsoorayaal da'yar isla markaana oo qayb weyn markaasi uu ka yahay qorshaha uu higsanayo 2022 xiriirka Soomaaliyeed ee tenniska dheer waxaa noo sharaf ah inaanu maanta seminaarkii labaad aan qabanayno dugsiyada gobolka Banaadir dhamantood seminaarkan xarunaa inay ardayda ka faa'iideysato tenniska garsoornimadiisa xiriirkuna u baahan yahay garsoorkaas in la taxqiiqiyo waxaanu rajeynaynaa inaanu si fiican daruusiisa u qaadataan waana mahadsantihiin ugu dambeyntii Xaaji Rombe oo ah la taliyaha dhinaca ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliyeed oo hadal kooban jeediyay sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka munaasabadda furka u ah tababarayaasha garsoorka cusub waxa uu kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan casharada muddada bilka ah ay u xaadirin doonaan isla markaana uu sheegay in uu markaasi guul u rajeynayo dhamaantooda gudoomiyaha tenniska dheer gudoomiyaha kubadda gacanta gudoomiyaha ku-xigeenka xogayaha dhammaan ardayda loo soo xulay tababarka garsoornimada iyo saxaafadaba waa salaamantiin dhammaantiin salaan kadib runtii sharaf weyn bay ii tahay anigoo ka hadlaya magaca wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo guddiga olombikadaba in aan maanta aan halkaan ka soo qayb galno tababarkan runtii waxaan dhihi karaa isboortiga Soomaaliyeed markasta wuxuu soo kumaa xagga dugsiyada barsimaadkii dugsiyada ayaa laga soo xuli jiray wixii macallin ah wixii ciyaartooy ah gaar ahaan tenniska waxaa u baahan yahay dad aqoon leh ha ahaado ninka ciyaarayo ha ahaado ninka garsoorayo haddii laba muxuu ahaa aqoontaasi tii aysan jirin waxa waaye la gaari maayo yoolka la leeyahay Soomaaliya dhalinyaro badan ayaa muxuu ahaa horay ay muxuu ahaa garsoor ugu soo noqdeen maanta sharaf iyo magac iyo sumcad adduunyanaha ay ku leeyihiin adinkana waxaa loo baahan yahay sida oo kale inaad ka faa'iideysataan tababarka waan ognahay dadka Soomaalida wax qaarkood waxa waaye laba maalin hore la imaanay maalin saddexaad waa la gooyaa waxa waaye taas ma anfacayso waxa waaye sharaf waxay ku jirtaa waxa waaye meesha ama waa ka muuqo ama ka maqnaaw marka waxa loo baahan yahay inaad muxuu ahaa ka muuqatid oo muxuu ahaa maanta garsoora waxa waaye nin magac sport magac loo leeyahay maal adduunyo waxa tii ma jiro magac waaye alle hebel garsoori hebel waaye gabadha garsooridii hore muxuu ahaa waaye tenniska waaye
qof waxa waaye magacaas ayaa meesha muxuu meel kasta aadina lagu soo dhaweynaya cayaarta tenniska waa cayaaraha runtii muxuu ahaa ugu fiican ugu xamaasad badan ugu muxuu ahaa sharcigana waa leeyahay waxaanu leeyahay magacan iyo muxuu ahaa adduunweynahane warkaysaa waa aad buu dheer yahay cayaar waxa waaye runtii muxuu ahaa u baahan adkaysi u baahan muxuu ahaa dadaal u baahan physicalmente muxuu qofka waxa waaye garsooraha horta dhib ma marayo garsooraha waxa waaye meel buu istaagayaa muxuu ahaa wuxuu leeyahay gool waay gool maahan sidii kubadda cagta camal maahan oo la ordaa bag iyo muxuu tenniska iyo baal kale muxuu ahaa kubadda gacanta iyo volleyga iyo basketballka iyo maahan garsooraha waxa waaye meel u taagnaanaya ama meel ugu fadhiyaa meeshaas ayuu waxa leeyahay gool waay iyo gool maahan intaas waay xiriirka Soomaalida Tennis Club ayaa kamid ah xiriirada markaasi hoos yimaada guddiga Olombikada qaranka Soomaaliyeed waxaana uu sanadooyinkii ugu dambeeyay waday abaabul xoogan oo dhinaca tababarada joogtada ah tartamada iyo sidoo kale ciyaaro dibadda loo aadayo